الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولاله صوماليات وعليكم السلام يا سلام بقرتي سن الدونك أو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا ذي سلام يا ملك السوجوكتان هذا بس إذا أتكو أركتين عوانك كوري فيديو كان وحنا وهذا دونا هدو يبها ودله كرر للنقطة شن قضب أو كو abuuri karto ama waad ku dhisi karto kalsoonida shakhsiyeed kalsoonidaada sideed kalsooni ku abuuri karaysaa sideed kalsooni u dhisi karaysaa sidee kalsoonida naftaada aad u dhisi kartaa waxaad naqshay mar badan hebel kalsooni daraa jirto heblaaye kalsooni isku qabtaa ninkan waa nin absolutely kalsooni fiican qabo haddaba maadaama aad maqashay su'aasha waxay tahay sideen ku samayn karaa waayo adduunkan waa problem wax walbana xal bay leeyihiin haddaba wax walbo dunida jiro xal bay leeyihiin wax la'aana adduunka ma jiro sababtaas awgeed baan raacay inaan jeclaystay inaan la wadaago walaalahii Soomaaliyeed iyo waliba dadka kale laga yaabo inay fahmaan luqadda Soomaaliga maadaama luqadeena hadda international ay noqotay Soomaaliga by the way international way waxa looga hadlaa afar wadan Soomaaliya looga hadlaa Kenya looga hadlaa Ethiopia looga hadlaa Djibouti looga hadlaa haddana waxaan rajeynaynaa sanadaha soo socdo Soomaalida luqadda Soomaaliga in wadamo badan ay qaataan insha Allah taala waxa waayo vision-ka kor haddaba yaa markii ku daalinin shanta qodob aan idin bilaabo ee aad ku kordhin kartid ama aad ku dhisi kartid kalsoonidaada nafeed first of all eliminate negative people from your life qodobka ugu horeeya waxay tahay dadka negative-ka ee aad wax walbood keento barnaamij walba ku dhahaya you cannot do it dadka negative-ka noloshaada ka saar dadka negative-ka ee Ilaahay kuma darnaadee mar walba ka dhaadhiciyo inaadan waxba ahayn ee ku tusaya inaadan waxba qabsan karin noloshaada ka saar dadka negative-ka hal discuss gareyn waxna dadka negative-ka waanaha weydiinin dadka negative-ka wax tala ha weydiinin noloshaada ka saar dadka negative-ka waa hadaad rabtid inaad horumar gaartid horumar nafeed haddii aad rabtid kalsooni buuxda naftaada inaad gelisid oo aad ku sarawn garaysan ama dhinacyadaada ay joogaan dad negative weliga guushaada ma gaaraysid marka si qodobka ugu horeeya maxay tahay remove negative people from your life qodobka labaad compliment others qodobka labaad waxay tahay dadka wanaagsan ee asxaabtaada ee kugu xareeraysan ku agtaada joogo markaad ku aragtid inay wax wanaagsan sameynayaan u hambaliye ku amaan waxyaabaha ay ku fiican yihiin ku amaan markay wax wanaagsan ku qabtaan ku amaan tusaale oo kale maanta waxa laga yaabaa inuu saaxiibka soo gato saacad qurux badan saaxiibka kaba fiican uu soo gato saaxiibka u sameeyo horumar wanaagsan amaan saaxiibka dhiirigeli dareensi xaashooda ma sha Allah saaxiib wallahi maanta kaba qurxan wada tamaan ma today waa ma sha Allah you look nice qofku wuxuu dareemayaa farxad badan oo aad ka qeylisanaysaa markuu qofka xishoodo yani aad amaantidna waxay suuragelinaysaa inuu aad ku dhiirigeliyo inuu aad ku jeclaado inuu ixtiraam fara badan uu ku hayo marka qodobka labaad maxay tahay sirta labaad cidna u sheegin compliment others dadka kale amaan waxyaabaha ay ku fiican yihiin sababtoo amaanta waa lacag laan qofka kale walaalkaana wax bay u galaysaa farxad bay u noqonaysaa qodobka saddexaad maxay tahay do something good for your body maalin kasto isku day jirkaada inaad wax wanaagsan u samaysid sidee u samaynaysaa push up 10 inaad samayn kartid ama 5 maalinkii inaad Ilaahay kuma darnaadee ordi kartid subaxii oo kale inaad baxdid oo aad adiga abaar soo ordid dhid iska keentid inaad Ilaahay kuma darnaadee badii adiga 20 push up kala duwan aad samaysid jimicsiye kala duwan inaad nolosha inaad samaysid taas waxay kalifaysaa jirkaada markaad wax wanaagsan galisid oo yani exercise aad samaysid oo xoogaa iska lakicisid jirkaada waa inaad tiraahdo man xoogaa ma sha Allah hilibka badnaan waa iga digay mana xoogaa kalsooniya dareemaysaa nafeed laakiin haddaadan if you don't work out problem waa marka qodobkaas implement gareeyo Ilaahay kala loo qodob saddexaad qodobka afraad maxay tahay feed your brain qodobka afraad waxay tahay maskaxdaada raashin si
laga yaabo qofka inuu leeyahay inaad leedahay maskaxda raashin loo siina haddaba maskaxda raashinka cuntaan ku sheegaya maxay tahay maskaxda raashinka ee cunto waa qofka inuu wax aqriyo maalin kasto qofka inuu kaligiis meel fariisto uu wax keena hal abuur cusub qofka inuu intuu fiiriyo erkay dhulka iyo waxa socdo iyo dadka bini'aadamka waxay abuureen uu dhaho aniga as a human being qof ahaan maxaan adduunka kusoo kordhin karaa qofka inuu noqdo creative wax inaad kusoo kordhin kartaa adduunka isku day waxna adduunka wax ugu soo kordhin kartaa by one means inaad wax akhrisatid buugaag la qoray 2 milyan 2,000 sano ka hor taasoo ku tusayso waxyaabo fara badan oo xilligaas aan yaalinay la inventigareeyay ama la curiyay inaad curin kartid oo kuwa cusub raadi qaababaad wax ku curin kartid qaababaad barnaamij kula imaan kartid that's why aan ku dhahay feed your brain maskaxdaada waxaad ku xin kartaa saas qodobka shanaad help someone in need qodobka shanaad waxay tahay qof caawi maskiin ah oo xaaladda ay ku adag tahay isku day dadka masaakiinta inaad caawisid qofka markaad hebel caawisid walaalka markaad caawisid qof yacni ay xaaladda ku adag tahay markaad caawisid waxaad dareemaysaa kalsooni fara badan waxaad dareemaysaa farxad badan waxay ku gelinaysaa ilaahay kuma darnaadee inaad tahay qof wanaagsan baad niyadda ka dareemaysaa marka dadka walaalaha qof walbo maskiina isku day inaa caydid haddaba aan summary ku sameeyo 5 qodob aan ka hadlayay marka ugu horeysa eliminate naftaada noloshaada ka cayri dadka negative ka ah 2 dadka kala amaan 3 maalinka push up ama wax oo exercise samee 4 wax aqri oo maxaa la yiri maskaxdaada raashin si 5 dadka caawi intaas ka soo gabagabeynaya asxaabta qeyb badan ay idin rajeena intaas ka hor haddii aad ka heshay barnaamijkan fadlan like dheh haddii aad rabtid barnaamijka inaad fikir ka joodisid oo aad afkaar noo soo joodisid comment ku qor haddii aad doonaysid video noocan oo kala subscribe dheh haddii aad doonaysid asxaabtaada in ay ilaahay kuma darnaada ayagana ka faa'iidaan qodobadan share dheh intaan barnaamij noocan oo kala ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa amaana allah